gudoomiyaha guud ee gudida wanaag farista iyo xumaan reebista jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Muuse Jaamac Cabdi oo warbaahinta kula hadlay xafiiskooda guud ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray bulshada reer Soomaaliland seen wada ognahay bariyahan dambe waxa jira muran siyaasadeed oo waxa weeyaan runtii dalka iyo dadka dhibaato weyn ku haya dhibaatadaas oo ah xaqii bulshada oo dareentay runtii oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqeedii iyo nolosheedii iyo dhibaato kale oo imika ku soo korodhay in markaa waxa weeyaan qori la qaatay ugu horeyn waxaanu tilmaameynaa mawduuca fattaqullaha wa aslihuu daata baynikum وآيات قرآن إلهي سبحانه وتعالى آيات وحكو تلمامي لبا موضوع وواوين ولبا ضبا runtii waqti dheer iyo ka waran dheer u baahan laakiin anaku maradu waxaynu meediya yahay qodobo kooban ku soo qaadanayno mawduuca hore waxa weeyaan fattaqullaha ilaahay ka cabsooda mawduuca labaadna waxa weeye aslihuu ذات بينكم دحدين وناجيه آيات وساسيتي بين كو هرينو فاتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى عبسديس وحمهما قفك صوم مسلم ومؤمني إنه إله كعبسوده فاتقوا الله عبسد إلهي waxa lagu qeexaa ama lagu soo ururiyaa inuu qofku markaa waxa weeyaan امتثال الأوامر أوامرتنا لا يمادو واجتناب النواهي وحي لغا ريبنا كتغو موضوع عاسئات بلارين إن وحي لغا ريبي إلهي كو ديري سبحانه وتعالى آد كتغتو در إلهي وكتغتو أدو إلهي كو ريالي قلينيا إيا وحي لغا ريبي إن آد كهردو در إلهي وكهردو أدو إلهي سبحانه وتعالى كغا عبصونيا walaalayaal seen wada ognahay dhibaatada muslimiintu aad iyo aad bay u xun tahay waxa loo baahan qofku markuu qof muslim oo mu'min yahay marka ugu horeysa inuu ka fikiro inay aakhiradiisu badbaado marka wax kale oo dhan laga yimaado waxyaabo badan oo qofka wax jira ku riixay inuu dhibaato galo qabyaalada kamida rabitaanka adduunyada kamida waxa soo dhan wuxuu loo baahan qofka muslimka inuu ka horeysiyo ilaahay ma ka nabad gashay mise kama nabad gelin waxaynu tilmaamayna marka laga tago dadka siyaasadda hadalka isku haya dadka shacabka ah runtii ay halis tahay inay gacanta iskula tagaan inay ka fikiraan qof muslina oo qof muslina dilay dhibaatadu leeyahay inaad ka fikirto ilaahay subhanahu wa ta'ala arintaasi adag buu uga hadlay waxaanu ilaahay subhanahu wa ta'ala waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannama khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله وحكوت المام قف مؤمن الدله حق درك الدله إلهي سبحانه وتعالى أرهمه وين بلنقاد جهنم إلهي بلنقاد نار جهنمين وقليو إنه كواريو إنه إلهي وعراضي إنه إلهي نعذري إنه عذاب عظيم وين إلهي كو أبالنا إلهي بسائل سبحانه وتعالى مركا ولا ليال dadka muslimiinta ah dibtooda iyo dilkooda iyo gacantooda waa inaan lagu degdegin waa in la iska ilaaliyo waa in laga fogaado waxaan markaa u soo jeedinaynaa cid kasta oo ay ugu horeeyaan walaalaheena cadhooday ee waxa weeyaan qoryaa qaatay walaalayaal qof muslim oo mu'min oo walaalkiina gacantiina haduu ku baxo dhibaatada inta lag ilaahay ka waram ilaahay baa ka waramay inaku kama warramay marka waa in la iska ilaaliyo
dhibta muslimiinta waa in la iska ilaaliyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay adduunyadoo dhan oo suusho oo baabada waxa ka dhib badan qof muslim ah oo la dilo oo xaq darro lagu dilo marka horta waxaanu leenahay cid kasta oo dil waxa weeyaan kasbata ama dil samaysa dhibaatadaas iyo cadaabkaas iyo cadhadaas iyo nacdashaas ayaa u taala waxaan markaas soo jeedinaynaa dawlad iyo shacabba ha laga fogaado in qof muslim dhiigiisu daato inuu qof muslim dhinto aad iyo aad ha looga fogaado iyadoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagaga cabsoonayo qof kasta ilaahay kaga cabsoodo qodobkaas waa kaas waxaan raacinayaa qodobka labaad oo ah in ilaahay subxaanahu wa ta'ala cabsiisa ay ka mid tahay in markaa waxa weeyaan xumaanta la iska daayo oo xumaanaha iyo macsooyinka dhacaya waxay sababaan in waxa weeyaan markaa dalka ay dhibaato ku timaado in badan baanu ka hadalnaa waxyaabaha macsida ah ee dalka ka jira oo nidhaa war arrintaasi dalka iyo dadka midna u dan maaha waxaa jira marka macsiyada la banaysto macsiyadu waa laba nooc macsiyo la qarsado oo lala dhuunto iyo macsiyo lagu faano ama laga ganacsado imika labada macsiyo way kala weyn oo macsiyada lala dhuunto waxa ka shar badan macsiyada la muujisto ama la daahirsado imika waxa jira mid qaar laga ganacsada jiro lacag laga sameeyo macsiyadii baa lacag laga sameynaya waa lagu faanaya meherad baa laga dhiganaya sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu tibaaxay oo uu sheegay in hudheelada magaalada Hargeysa ku soo badanaya ee bandhigyada ku qabtay isla mar ahaantaasina dhalinyarada muusiga ku casaysiiya ay iyaguna ilaahay ka cabsadaan waa sidoo hadalka u dhigay gudoomiyuhu waxaan soo qaadanayaa toddobaadkii hore social media waxa ku jirtay hudheeladeena kamid ah oo magaalada ka furan oo la wareysanayo TV-da ay wareysanayeen oo tilmaamayay inay dadka ku cashaysiiyaan muusikada iyo jaaska dhalinyarada waananu arkaynay dhalinyaradii iska soo horjeeda oo rag iyo dumar leh oo jaasaysa xaraam weey macsiyo minan la weey waxyaabaha dalkan waxyeelaynaya weey xaqiiqada hadii laga hadlo dalkan waxa dib u dhigaya oo waxa weeyaan dhibaato weyn ku ah dadka waxa weeyaan markaa xumaanta ku soo kordhiyay waxay leeyihiin waan ka ganacsanaynaa way soo bandhigayeen muusikadii baa lagu casheynayaa dhalinyaro u jaasta ayaa loo sameystay macsiyooyinka noocaas ah dawladda waxaan u soo jeedinaynaa dalka inay ka qabtaan oo ka joojiyaan subxaanahu wa ta'ala arsaaqda meel walba uga keenay oo markaa waxa weeyaan nimcadii ilaahay ku kufriday oo ilaahay ugu bedelay subxaanahu wa ta'ala libaas al-juu'i wal khawf dharka waxa dhar looga dhigayaa buu ilaahay gaajadii iyo waxa weeyaan amaan daradii libaas al-juu'i wal khawf in markaa cabsidiina la huwiyo gaajadiina la huwiya laga faa'iideeya hadii macsiyada la banaysto marka arrimaha noocaas waxa lagu kasbadaa lagu gaadha in markaa waxa weeyaan macsiyada la banaysto oo ilaahay laga cabsoonayo marka waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay aanu ka cabsoono xumaantana aynu iska ilaalino runtii waxa laga yaabo waxyaabo badan oo aynu dareemayno inay tahay waxyaabo aynu keensanay wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum ya'fu an kathiir ilaahay baa wuxuu leeyahay wax kasta oo yimaado oo shar ah oo cudurra oo amni darra oo abaara ah oo waxaad u kasbateen oo shaqaysateen billahi subhanahu wa ta'ala marka inta meelo kale eegayno ama aan leenahay siyaasadii baa lagu heshiin way ama aan leenahay qayladii baa badatay waxa laga yaabaa dunuubina ku aynu galay in waxa weeyaan dhibto dhan ka imanayso marka aynu iska ilaalino xumaanta waxaanu sidoo kale uu tibaaxay in dhibaatada iyo waliba balaayooyinka ka dhaca dal iyo bulsho ay sababto macsiyada bulshada dhexdeeda caadada ka noqda waxa sabab u ah in la istilo abaara dhacaan oo dhibaato dhacdo ciyaal macsiyo banaysta baa sabab u ah sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu baaqo diray siyaasiyiinta mucaaradka iyo maxaafidka ah ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay miiska wada hadalka ku dhameystaan
arrin kaste iyo wax kastoo isku hayaan siyaasadda isku haysa dawladda iyo mucaaradka waxaan u soo jeedinaynaa iyagana in ay waxa isku hayaan wada hadal iyo fadhi ku dhameeyaan waxa kale oo dareensiinaynaa bulshada reer Soomaaliland maanta culays badan baa saaran culaysyada saaran waxa kamid ah waqti aynu soo marno corona la oran jiray oo dalka kala xidhay waxa kamid ah suuqeeni weynaa ee gubtay oo wax badan ina yeelay waxa kamid ah sixir barar adduunka ka dhacay inuu la qabno inta bulshada reer Soomaaliland waxa u dheer muran madhalaysa oo mucaaradkii muxaafidka ah oo saameeyay oo noloshoodii wax badan isaguna dhaawacay marka dadka madaxdan waxaan leenahay bulshadiina daneeyo ilaahay kaga cabsoodo oo ishaysigiinu noloshoodii dhibaato badan mu ku hayaa heshiiya oo wanaag ku heshiiya oo ilaahay kaga cabsooda oo umadiina u naxa ya taasana iyaguna u soo jeedinayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqahayna waafajiyo Yaxya Muuse Ibrahim Nairobi warbaahinta SITV Hargeysa